لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله يو وحن كويدي سنينا خير ودن كيسي هرية كيسي دنبيبا وحن أغنى وحن نغيبا الله يو وحن كامل قلينا شر ودن كيسي هرية كيسي دنبي انت نغنى انت نغيبا الله يو وحن كويدي سنينا وحي نبي الله محمد كويدي صلى الله عليه وآله وسلم وحن كامل قلينا وحي نبي الله محمد كامل قلينا ودن وكامل قلينا الله يو وحن كويدي سنينا وحعمل ونردوي جنة هذا jannada ayaan ku weydiisanayaa iyo camalkii noo dhoweyn lahaa waxaan kaa magan gelaynaa naarta iyo camalkii naarta noo dhoweyn lahaa waxaan ku weydiisanaynaa rabbiyow inaad qadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka mar walba aadna waafajiso ayaan ku weydiisanaynaa yaa rabbi waxaan ku weydiisanaynaa inaad khashyada cabsidaada ilaahay una siiso ee qaybka iyo shahaadadaba waxaan ku weydiisanaynaa kelimada xaqa inaadna waafajiso mar walba waxaan ku weydiisanaynaa inaan qasdi iyo dhexdhexaad mar walba ay noqoto xaaladayadu faqriga iyo qinahaba waxaan ku weydiisanaynaa rabbiyow nicmo aan dhammaanaynin ayaan ku weydiisanaynaa waxaan ku weydiisanaynaa raalli ahaansho inaan raalli ku noqonno qadahaaga iyo xukumkaaga waxaan ku weydiisanaynaa nolol wanaagsan oo qabow geerida kadib waxaan ku weydiisanaynaa inaan wejigaaga aragno oon ku raaxaysanno yaa rabb liqahaaga iyo la kulankaagana inaan u hilowno oon jeclaanno ayaan ku weydiisanaya yaa rabbi rabbi waxaan ku weydiisanaynaa caafimaad iyo cafwi adduun iyo aakharaba rabbiyow waxaan ku weydiisanaynaa inaad caafimaad iyo cafwi diintayada iyo adduunkayaga iyo ahalkayaga iyo maalkayaga iyo awlaadayada iyo ehelkayaga intoo dhan ilaahayow cawradayada astur allahayow cawradayada astur allahayowna xifdi oo na ilaali xagga hore iyo xagga dambe iyo midig iyo bidix iyo dhammaanba allow naga ilaali yaa rabb allah waxaan ku weydiisanaynaa inaan sugnaanno ayaan ku weydiisanaynaa allahayow adduunka nagu sug yaa rabbaalcaalamiin allahayow kelimatulxaqi nagu sug cinda alliqaa allowna sug cinda alqabri allowna sug ilaahay subxaanahu wa tacaala cinda albacdka allowna sug waxaan ku weydiisanaynaa wixii raxmaddaada noo keeni lahaa waxaan ku weydiisanaynaa makfiradaada iyo dembi dhaafkaaga waxaan ku weydiisanaynaa inaan noqonno dad ku shugreen nicmadaada iyo cibaadadaada waxaan ku weydiisanaynaa qalbi saliim oo nabadgale waxaan ku weydiisanaynaa carab saadiq oo run badan waxaan ku weydiisanaynaa khayr oo dhan waxaan ognahay iyo waxaanna ogeynba waxaan kaa magan gelaynaa shar oo dhan waxaan ognahay iyo waxaanna ogeynba allahayow xalaashaada nagu kaafi oo xaaraanta naga kaafi allahayow fadligaagana sii yaa rabbaalcaalamiin allahayowna caafimaadna sii badankayaga allahayow caafimaad noo sii maqalkayaga iyo araggayaga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkayaga oo dhanba ilaahayow kufri iyo faqri ayaan rabbiyow kaa magan gallay yaa allah intaasoo dhan baan kaa magan gelaynaa yaa allah yaa raxmaanu yaa raxiim waxaan joognaa yowmu carafa waa maalintii la ducaysan jiray waa maalinta ilaahay agtiisa ugu weyn waa maalinta ducada rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam ugu fadli badan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahayow dunuubtayadoo dhan noo dhaaf allahayow iska kaaya cafi allahayow gufraanu dunuubna sii allahayow noo naxariiso allahayow weli noo noqo allahayow inta kurbaysan oo dhan kurbadooda fay dadka muslimiinta dadka iyaga soomaaliyeed kuwii dhannaayee maaragtay rabay ee ducada naga soo dalbanayay masaajidda iyo qolalka iyo meel walba jooga ilaahayow qof walba kurbadiisa fay ilaahayow qof walba su'ligiisa sii ilaahow qof walba wuxuu jecel yahay sii ilaahow qof walba wuxuu necab yahayna ka xijaab allah subxaanahu wa tacaala kuwa jiran caafimaad ha siiyo kuwii dhintayna allah u naxariisto dadkii walaalaha gabdhihii waalidkooda xajka u soo dhiibaayey ee ka xajinayay ee baariyiinta u ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiinaynaa waalidkeen qabriga rawda min riyaadi aljanna inuu uga dhigo xajkoodiina xajan mabruur inuu uga dhigo sacyi mashkuura inuu uga dhigo dembigoodiina in loo dhaafo ayaan alla u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala camalkaana allah idinka aqbala baan alla idin weydiinaya subxaanahu wa tacaala kuwa ku jira xabsiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo soo daayo
kuwa madluumiinta ee mudaahadiinta ee la dhibaayo culimmadu ugu horrayso ee maaragtay ee la dhibaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha badbaadiyo oo dhibka alla subxaanahu wa tacaala ha ka badbaadiyo kuwa hallaabay ee maaragtay waddada ka dhacay ee xaqa garamaray ee masaajidda ka tegay ilaahay subxaanahu wa tacaala raddahumullaahu raddan jabiilan allah inoo soo celiyo awlaaddeenna allah inoo soo celiyo allaahuma طahir qalbahum waaxsin farjahum واغفر ذنبهم جميعا اللهم اشف المرضى منهم يا رب العالمين kuwa xanuunsan oo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad allaha siiyo kuwa guurla'aanta guur xalaala oo wanaagsan oo diinta ilaahay isu kaalmaystaan rag iyo dumarba allaha siiyo kuwa awlaad la'aanta dadka badan oo wiilasha gabdhaha carruur la'aanta ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa baariyiina allaha ku arsaaqo kuwa indhahooda ku qabowsadaan allaha ku arsaaqo kuwa gurigooda qurxiya allaha ku arsaaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala inta xaqiisa iyo diintiisa u taaganba rabbi subxaanahu wa tacaala ha ku quweeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanilxasanaad ha noo geliyo allah subxaanahu wa tacaala qof kasta oo su'uligiisa ilaahay allah baan waxba ka qarsoonayn ruux walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ee duca codsaneeyey oo in loo soo duceeyo ka dalbaya dadka muslimiinta allah waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu su'uligiisii siiyo oo kurbadiisa adduun iyo aakharaba uu faydo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dembigeenna maanta ha dhaafo meel aan joognaba ilaahay dunuubteenna haynoo dhaafo allaahuma tawafanaa maca alabraar ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna oofsado innaga oo maaragtay makfuuriina allah hayna oofsado allaahuma طahir quluubanaa yaa rabba alcaalamiin allaahuma habbit qalbanaa yaa rabba alcaalamiin allaahuma habbit quluubanaa yaa rabba alcaalamiin اللهم وفقنا التوبة يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا رب العالمين اللهم أعطنا إلهي سبحانه وتعالى حسن الخاتمة إنه أرزاقه هي كلمة التوحيد أودا بيسيا هذا الكينا في الدنيا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.